wuxuu yidhi alle isagoo ka hadlaya balanta وأوفوا بالعهد balanka oofiya وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا oofiya balanta maxaa yeelay balanku waxa uu ahaaday mid la isweydiin doone daawada wiilkan aragtaan qisadiisa qof aan la soconin ma jiro wiilkani maalimahan social media aad iyo aad asiga loo hadal hayaa wiilkan waxa ku dhacday dhacdo xanuun badan dhacdo iyo qiso jacayl xanuun badan oo qof walba qalbi leh dareen leh oo bini aadamnimada wax ka yaqaano dareemaya xanuunkiisa wiilkan waxaa la sheegay inuu gabar ay isqabeen oo aad u jeclaa ay Sacuudiga isku qabeen gabadhii ee yacni nolosha Sacuudi Carabiga waa laga warqabaa dadka isku soo sabro gabadha inay ka dhooftay ee ka dhaqaajisay ee xaaladan halista ah geysay waxaa rabaa ina koob iyo laba ka dhaho rag iyo dumar kuwa ku ciyaaro qalbiga bini aadanka quluubta bini aadanka sidee rabaan inay ka yeeshtaan meel halis ah ay ka soo laaban karin inay geersiiyaan ee haddana meel xun ugu tagaan war ina qof bini aadan rag iyo dumar waxa rabtid oo ina qof bini aadan damac jacayl hami ina gelisid haddana sidan u gashid ama xumaysid ama halista ugu tagtid wax faa'iido ah wax dan ah adduunyo iyo aakhiro waxa ka faa'iideysid ma jiro guul amaanta ku gaartid ina qof bini aadan qalbigiisa aad dhibaataysid aad dhaawacdid halista aad gaarsiisid oo xaaladan xun ilaa uu ka gaaro meel uu ka soo laaban karo qofka bini aadanka xataa haddii asagoo meesha iyo hamiga aad gelisa meel uu ka soo laaban kara ee tahay waa wax fiican laakiin qofka inaad gaarsiisid meel uu ka soo laaban karin oo xaaladan oo kala ina qof bini aadan gelisid balan ka qaadid jacayl gelisid hami gelisid rajo gelisid uu isku ka dhiibo ilaa reer xadka ka baxsan oo xaaladan oo kale ku timaado maxaa ka faa'iideysaa kuwa ku ciyaarayo quluubta bini aadanka rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadaan ilaahayga idin abuurtay ka baqa oo qofka bini aadamka xumaatada dhibaatada ilaa reer oo maskaxdiisa ka doorsamo oo qof waalan ka noqdo oo xaashi aruuriyo oo durbiyaasha jiifka ha gaarsiinina kuwa dadka ku qortumanaya kuwa dadka qaluubtooda ku ciyaaraya ilaahay idin abuurtay maadan ka baqaynin ilaahay idin abuurtay maadan ka xishoonin ilaahay idin abuurtay oo qalbigan idin soo jilciyay oo qalbigan idin dareensiiyay oo qalbigan hami iyo hadaf iyo dareen dhab inuu idin qaada rabbigii awooday maadan ka cabsanaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala maadan soo xasuusanaynin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro faataxada marna wiilkan walaalkeen u wada duceyno ilaahay caafimaad taam ilaahay ha siiyo rag iyo dumar kuwa qaluubta bini aadamka iyo dareenka bini aadanka iyo naf bini aadan dheelka dhiganaya ilaahay xaqa ha tuso waxaa jiro dad kooban dadka inay balan ka qaadaan kalsooni siiyaan xaaladaha markaas jiro hami geliyaan rajo geliyaan qofkii markuu gaarsiiyo reer qofkan inuu ku kalsoonaan karo oo qof daacad yahay qof isbedeleen yahay qof yacni markaas garabkiisa buuxin karo inuu yahay qof xaalad walba imaada meelna ugu tagaynin inuu yahay markuu arko oo qofkii isku bedelayo xaaladda uu qofkaas ku jiro wuxuu yahay qofkii hamiga uu geliyay dareenka uu geliyay oo rajada iyo hamiga ka qaaday isku dhiibay qofkan aaminay oo qofkii isku bedelay rag iyo dumar way jiraan dad noocaas way jiraan dad aan yacni qofka bini aadanka koob markuu baranayo qofkan oo yacni isku filan yahay markaan uu yahay qof wax qabsanayo qof adag qof noloshiisa qof u liicin markuu yahay uu arko qof yacni dadka iska dhigayo inuu qofkan xaalad walba imaado garabkiisa buuxinayo qofkan inuu yahay qof aan meelna ugu dhaqaaqaynin ilaa reer qofka uu geliyo asqa camiya carabta waxay dhahaa asqa camiya kalsooni indhala kalsooni aan indha lahayn markuu geliyo oo qofkii ka dhaqaajinayo waxaa la dhahaa carabta yiraahdeen asqa camiya يعني كلسوني إن الله هين واي خوف كان واسكو ديبيسا
marka koob ay isbaratiin wuxuu ku siinayaa kalsooni kalgacal wanaag badan waqti badan farxad badan jacayl badan oo adiga islaadahay ba siqa camiya sida carabta ay yiraahdeen waaba kalsooni aan indha lahayn adiga indha dhan ma baquu lahan qofkan waxa ka aaminaysaa boqol inuu yahay qof garabkaaga ah qof yani jacaylkaaga kana qismaynin bidabta adiga qalbigaaga iyo dareenkaaga iyo siqada camiyada ah oo yani qaaday sidoo yahay oo kale inuu ku yahay wuxuu kuba abuurayaa kalsooni been ah kalsooni aan indha lahayn kalsooni sax iyo qalad ku kala ogaan karin kalsooni yani isdhihi karin qofkan wuu isku ka bedelayaa laakiin markii ay gaarto xaalad noocan oo kala ah oo wiilkan ku imaaday dadka way kala adag yihiin dadka way kala qalbi adag yihiin dadka way kala adkaysi badan yihiin dadka way kala يعني دلقات بدنيهين هذا ويل كان وحو يهي ويل قلبي جيسا يعني دلقات كيس أتكيسي جيسا جلعان مركا خف جلعان مركا حالة نوعان جلسيد محا لينيسا خف بني آدم ولو كلسونان كرا دون كان كومانولو دادك قار إنا كلسوناتد وحا قفي عن أولا شيء نفتاذا كلسونو أولا شيء حسوسناو كفكر وخف كان إنه بني آدم يها مهما كان أو بأي طريقة وإسكو كان بدلي كرا أديكو فلانين أديكو قطشنايو أديكو آميني أديكو إسكو ديبي أديكو همي جاجي الرجال هذا الرياض هذا كتلي أديكو ننول بإنه قرب كاسينا أملينيشد إنه مالين آدم فلانين سي لما فلان أو إسكو كان بدلي كرا ضدك قار kalsooni ma lahan kalgacal ma lahan wanaag ma lahan ixtiraam ma lahan waxaaba ku arkayaan marka isku dhiibtid jaceelkaaga naxariistaada hamigaaga rajada ka leedahay waxay u arkayaan inaad tahay qof daciif ah qof sida la raba laga yeelan karo qof yani marka la raba laga tagayo marka la raba lagu soo noqonayo xaaladaha adag ay kugu imaado xiliga aad isku filan tahay إنه إسكاك قد حلقة أباهتني إنه خاتغاي بني آدم كواكاس بني آدم أكو كالسونانا إنت عده لهد أول شيء نفتاد أكو كالسونو أول شيء حسوسنو إنه خوف كان بني آدم يهي مهما كان أو وحول بقى كل ميسيد وحول بق وإلهي رالك إهين أما إلهي رالك يا وحفي عن وحن إنك لكل ميسد حسوسنو دتك قار كلسوني ده كالجعلك وناجا احترامك أوهيسد وحيلت هاي بإدقن نمو وحيلت هاي ضعيف نمو دتك قار حلقة أوباهنت هاي وكوب أتكيان مركو ويل كان ولال كان واي إلهي عافمات هسيو فاتحة أمرنا إلهي سبحانه وتعالى وحول بأسجع أوذو إلهي عافمات تام إلهي هسيو دتك كعيارة عقلك يدرنك يقلبك دتك كله دتك هميك يرجدا beenta dadka geliyo waqtiga ka dhumiyo sanado badan bilooyin badan waqti badan ka dhumiyo nafsiga gashid waa mid meel ku taalo haddii ay maanta adigu kugu dhicin birir macquul inay ku dhacdo ilmahaaga masaakiin waxba galabsanin inuu ilaahay kugu anqaabo oo ayaga ku rido haddii ay ilmahaaga ku dhicin xataa ilmahay sii dhalan nafsigaas inuu wareego oo ilaahay meel aadan ka filanaynin calaamada nafsigaas oo meel aadan ka filanayn kaaga soo muuqdo ilmahaaga ilmahay dhalan xataa inay ku dhacaan ayagoo wax galabsanin masaakiin dadka qalbiga bini aadanka ku ciyaarayo dadka waqtiga ka dhuminayo hamiga beenta rajada beenta gelinayo qofka xaalad uu ka soo laaban karin inta meelo ugu baxsada laheen ilaa reer waali ilaa reer murugo ilaa reer hurdo la'aan ilaa reer harsasho la'aan gaarsiinayo ilaahaygiina ka baqa xaalada wiilkan walaalkeen ku jiro waa u jeedin ilaahaygiina u noqda aakhirana ilaahay wuu idinka xisaabinayaa wuu idinla xisaabtimayaa rabbigaagu hortiis waxa la istaagtid oo la tagtid loo baahan yahay in qof bini aadan naftaado kala leh ku aaminay kalsooni ku siiyay kalgacal ku siiyay rajo iyo hami ku siiyay waqti badan
يعني صح إيه قلط أديك اسكو كديبي هميغ uu ka leeyahay mid uusan ka seexanin ama ka harsanin ama reer waali xadkan ah ina gaarsiisid waa laga fiican yahay ina qof bini aadan ku ciyaartid waqti ka dhumisid hamigiisa ku ciyaartid ha u maleynin guul aad gaartay ha u maleynin darajo aad qof dheertahay darajo aad qof dheertahay ma ahan waa damiir xumo waa ala ka cabsi la'aan waa anqaabta aakhiro meel ku taalo iyo su'aasha aakhiro iyo balantaas qofka ka gashay ilaa xadka kalsoonida ka baxsan gaarsiisay guulkuma ahan waa guul daro waa daciifnimo waa darajo xumo adduunka korkeeda waa darajo xumo waa daciifnimo si lama filaan ah ina isku bedeshid waxay ku tahay daciifnimo waxay ku tahay darajo xumo guul gaartay ma ahan laakiin waa guul daro gaartay iyo nafsi meel ku taalo ilaahay ha laga baqo dadka ku ciyaarayo dadka kala qalbigooda ilaahay ka baqa wiilkan walaalkeen waa u jeedin xaaladdu uu ku sugan yahay qof bini aadan hamigiisa iyo rajadiisa ina ku ciyaartid guul kuma gaaraysid guulna kuma ahan balanta waxa la yiri waa in la oofiyaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay inal ahd al ufu ila mas'uula ina noqotid qof mas'uul oo balantu uu galay ka soo baxay guul ku laakiin guul daro waxa ku adduunyo iyo aakhiro ina balan qaadid balanta inay kula noqoto hadal afka ka soo baxay meesha ku dhahday ugu dhaqaajisid guul daro adduunyo iyo aakhiro ku nafsi ku nafsigaas oo naftaada ka soo baxayo haduu naftaada ka soo bixin ilmahaaga oo waxba galabsanin حتى لو أنقابي كرو أدقو لو أنقابي لو عمل تساي المها كسو بحي كرو